halkan waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Galbeed waxa ka soo degay oo lagu soo dhaweynaya wafti ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyo senataro ka tirsan baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya ilaa 50 mas'uuliyiin kala duwan ayaa halkan lagu soo dhaweeyay oo ka soo kala socda gobolada Soomaaliya guud ahaan iyo dawlad goboleedyada Soomaaliya waxay tagi doonaan magaalada Laascaanood iyagoo booqan doona qaybaha kala duwan ee magaalada la kulmi doona maamulka cusub ee SSC Khaatumo. waxaa sharaf weyn noo ah inaan ku soo dhaweyno airportka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool caasimadda SSC Khaatumo wafdi ballaaran oo ka soo kacay caasimadda waddanka ee Muqdisho. wafdigan oo ay hogaaminayaan wasiirka boostada iyo isgaarsiinta wasiir Jaamac Khaliif, gudoomiyaha koowaad ee aqalka sare senator Cabdullaahi Xirsi Timcade iyo wafdiga ballaaran ee xildhibaanada. aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga oo u soo kicitimay inay reer Laascaanood iyo reer SSC kala qayb galaan guulihii waaweynaa ay ka gaareen halganka, iyo maadaama wadankii uu nabad noqday oo amni iyo nabadgelyo iyo kala dambeyn ka jirto inay dadkoodii iyo deegaankoodii ay mas'uuliyiinta iyo madaxda u ahaayeen soo indheeyaan. runtii dad badan ay isweydiin doona Xamza maxaa meesha geeyay maanta. awooyaashay ay ugu horeeyeen oo meeshaan yimid awooya Allah raxmada Cabdiraxiim Muumin oo gabar reer Khaatumo ka guursaday meeshaan. laakiin safarka maanta uu ka duuban yahay safarka awooyaashayda. meenta maanta waxa uu niman safarka waxa la solidarity to the people of Khaatumo. waa maxal yiraahdaa taageerida midnimada reer Khaatumo. waxaan baliyana insha Allah waxaan ilaahay ugu bariyaa reer Khaatumo nabad hadii la helo ayaa la helaa horumar. dhaweyseen ee fiican baan idinku mahadcelinaynaa, waa iswaraysan doonaa, waxaan idinku hambalyeeynaa guusha iyo barwaaqada iyo nabadda aad gaadheen oo dalkiina maanta aad xor u tihiin. aad iyo aad baan ku hambalyeeynaa. waxay la tahay xildhibaanada iyo ma yaqaan wasiir Laascaanood 30 kilomitir bay noo jirtaa hadda, marka xoogaa taraag baynu geli doonaa xaggan aad baan idinku mahadnaqaynaa. mudanayaal soo dhawaada Laascaanood ku soo dhawaada, waa dalkiinii waa dadkiinii aad jeclaydeen. waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqaynaa Laascaanood oo nabada, Sool oo nabada, SSC oo nabada, oo shacabka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ay dhex taagan tahay maanta. aad iyo aad baad ma soo dhawaada.